haddii aad ku guuldaraysato maaha micnaheedu inaanad wacnayn laakiin waa waayo aragnimo wanaagsan oo aad uga leexan karto wadadan si aad u marto tan oo inaad mar labaad tijaabiso ku soo dhow barnaamijka Baraarug waxaan ahay Cabdishakuur Maxamed Xarbi dad badan ayaa aaminsan furaha kaliya guushu inay tahay in shaqo adag la qabto sanadku markuu bilaabmo waxay ku tala galaan inay halgamaan oo ay si xoog leh u shaqeeyaan sanadkan soo socda kana dhabeeyaan dhammaan hadafyadii ay doonayeen oo ay lahaayeen nasiib xumo markuu sanadku xir socdo ama bilo yar kadib uma hirgalo ku talagalkoodii halganka adag inay ka qayb galaan taasna waxay sababtaa in isdhiibaan haddaba barnaamijkeena Baraarug toddobaadkan waxaan ku sheegi doonaa 7 waxyaabood oo sabab u ah inaad horumar sameyn weydo kana hortaagan in hadafyadaadu ku hirgalaan haddii markii koobaad ay tahay barnaamijka Baraarug aad nagala socoto fadlan subscribe channel-kan aad nagala socoto haddii page-ka nagala socotana fadlan like iyo follow dheh si aad mar walba noqoto qofka ugu horeeya ila socda barnaamijyadan halkan soo dhigno qorshe la'aan hadafyadaadu si kastoo ay u qurux badan yihiin haddaanay qorshe lahayn waa madhalays waxun baad la mid noqonaysaa qofkiisa yiri safar weliba uu safar wadan qalaad oo aan hore u arkin haddana aan haysan khariidadii sidoo kale aan u diyaar garoobin safarkii uu doonayay inuu tago xitaa isagoo yaqaana meeshuu tagayay meeshay tahay haddana haddaanad u diyaar garoobin safarkii logistics-kii iyo socdaalkii haddaanad ku talagelin oo aanad xisaabin waqtigii qorsheynteedii dee wuxuu safarkaagu wuxuu noqonayaa mid madhalays ah noloshuna waa sidaas si la mid ah dad badan ayaa jira waxay leeyihiin riyooyin aad u waaweyn waxay leeyihiin hadafyo aan caadi ahayn oo aad u qurux badan laakiin waxa kaliya haysta waxa weeye qorsheynta hadafyadan ay leeyihiin waxaad u baahan tahay inaad qorsheysato hadafyadaada iminka ka cararka guuldarrada dad badan ayaa waxay taagan yihiin meeshii ay weligood taagnaayeen sanad walbana sanadka kale ayuu u dhiibay oo weli meeshoodii ay taagan yihiin taas micnaheedu maaha oo kaliya waa bilaa qorshe sidoo kale waxaa suuragal ah dadkaasi inay yihiin qaar ka cararaya guuldarrada cabsida aad ka qabto guuldarrada aad ka cararayso waxay dhibaato kugu keenaysaa inaad meeshaadii taagnaato amaba aad hoos uga dhacdo waxaa loo baahan yahay hadafyadaada inaad ka shaqaysiiso maaha inaad ka cararto guuldarrada waa in aad waajahdo oo isku daydo inaad xaliso dhibaatooyinka markaas jira haddii aad doonayso inaad isbeddel samayso waa inaad hadafyadaada ka shaqaysiiso waa in aad waajahdo guuldarrada waa inaad xaliso dhibaatooyinka markaas jira si aad u hesho waxaad doonayso haddii aad ku guuldaraysato maaha micnaheedu inaanad wacnayn laakiin waa waayo aragnimo wanaagsan oo aad uga leexan karto wadadan si aad u marto tan oo inaad mar labaad tijaabiso waxaad qorshaysatay oo hadafyadaada ah waxaan suuragal ahayn dhalinyaro fara badan ayaa leh hadafyo waaweyn oo laakiin suurtagal ahayn taas waxay keentay maalin kasta markay tijaabiyaan oo ay u suurtageli weydo in ay niyad jabaan oo isdhiibaan marka la weydiiyo lagu dhaho maxaa si noqdayna ay eedeeyaan waxaan markaa ahayn hadafkan laakiin waxa ugu weyn haysta waxa weeyaan hadafkan oo aan ahayn mid suurtagal ah hadaf kastoo aad leedahay waa inaad isweydiiso talo ma suurtagal baa ma hirgeli karaa mise ma hirgeli karo ma soconayaa mise ma socon karo haddii aad hadaf kastoo iska qarato waxaa suuragal ah inaad niyad badan ka qaado kadib markuu socon waayo hadafyadu waqtiyo kala duwan ayay leeyihiin hadafyo waxaa jirta loogu talagalay in 10 sano ay ku hirgalaan haddii ka 10 sano loogu talagalay in ku hirgalaan aad ku qorato inaad week ku fuliso ama hal saac oo waxaan suuragal ahayn taas waxay markaa sababi kartaa niyad jab mar walba iska eeg inuu hadafkaagu yahay suuragal inaad welibana siisay waqtigii ku habboonaa waqti inuu ku qabsoomo loogu talagalay waxaan suuragal ahayn adiga unbay dhabarka kaa jibinayaan mar walba wax suuragal ka fikir ma kala horeysiisid hadafyadaadu si u kala muhiimsan yihiin waxaa jira buug magaciisa la yiraahdo 7 Habits of Highly Effective People buuggan waa buugaagta loogu iibsashada badan yahay marka la joogo wadamada reer galbeed
sidoo kale waa buugaagta yacni dhiirigelinta ay dadku aad u jecel yihiin. wuxuu buuggani sheegayaa markaas waxyaabaha waqtiga dadka ka lumiya inay qayb muhiima ka tahay kala horreysiinta, sida yacni hadafyadu u kala muhiimsan yihiin. adigoo dhammaan dabaqay afartii qodob aan hore usoo sheegnay, adigoo qorsheeyey, adigoo waajahay yacni guuldarada oo aan ka cararin, adigoo sidoo kale qaab kale u tijaabiyo haddii ay si hore kugu suuro geli weyday. haddana waxaa laga yaabaa inaad weli isleedahay talow halkee lagaa haystaa. waxa ugu weyn dadka waqtiga ka lumiya waa kala horreysiinta hadafyadu si u kala muhiimsan yihiin. mar walba iska hubi sida u kala muhiimsan yihiin inay u kala horeeyaan hadafyadaadu, waayo wax weyn ayay kaa qabanaysaa, waxaana suuro gelinaysaa dhammaan hadafyadaadu inay ku hirgalaan. miqyaas la'aanta horumarka. inaad horumar ballaaran samayso waxaa qayb muhiima ka qaataa in horumarkaagu yahay mid ku qiyaasan. miqyaas inaad qiyaasi karto intaad socotay, inta aad khasaartay iyo weliba inta kuu dhiman. haddii aad hadaf samaysato waa inaad isweydiiso ma leeyahay miqyaas. haddii aanu lahaynna waa inaad isweydiiso taba maxaan miqyaas uga dhigi karaa. taas waxay qayb muhiima ka qaadanaysaa inaad marba ogaato meeshaad marayso, inta kaaga dhiman meeshaad u socoto, waxyaabihii aad yacni luusgaraysay ama aad khasaartay. run ahaantii wax badan ayaad soo saari doontaa iyadoo sabab u tahay miqyaaskaas aad isticmaalayso. qodobkii dhexaad ayuu ahaa sababi karaa inaad horumar ballaaran samayn weydo. waxaad sugaysaa waqtigii ku habboonaa. cudurdaaro ayay dad badan samaystaan. markaad weydiiso maxaad halkan u taagan tahay, waxay ku oranayaan waxaan sugaynaa waqtigii habboonaa. waqtiga habboon asagoo kuu iman maayo, laakiin waa inaad adigu aad socoto oo aad u tagto. waqtigaaga ayaad iska luminaysaa. waqtigaaga oo kaliya iska lumin maysid, sida noloshaada oo dhan xitaa waad iska luminaysaa, waayo waxaad sugaysaa waqti aanad garanayn inuu ku dhaafay iyo inuu weli soo socdo iyo inuu kula joogo. fadlan dhaqaaq oo ha sugin waqtigii ku habboonaa. waqtigii ku habboonaa uu ku imanayaa adigoo socodkaaga wata. barnaamijkeena baraarug toddobaadkan intaas ayaan ku dhaafayaa. intaanan ka bixin waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe tiraho si aad mar walba u noqoto qofka ugu horreeya ee la socda barnaamijka baraarug iyo weliba barnaamijyada kale aan halkan idinkula wadaagno. like dheh, follow dheh page-ka aad imika nagala socoto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.